وعشر كان لواد داتا اناليسيس او اكسل اكو برنيني عشر كان wuxuu ku saabsan yahay table-ka waxyaalaha aadka muhiimka ah ayuu ku jiraa markaas la aragno qaabkee marka table loo sameeyaa qoraalka hadda qoraal iska caadi waaye sidee marka table loo sameeyaa koodii waa dooranaysaa markaad doorato laba qaab aad samayn kartaa kow waxaad samayn kartaa intaad isaad ku dhufato kadib waxaad dooran kartaa halkan ay qoran tahay table saa ujeedo okay leedahay marka then hadda already wuxuu marka wuxuu yeeshay table noqday filter iyo sort waan soo aragnay halkan sidoo kale waa ka samayn kartaa saa ujeedid waa ka soo kare kartaa daba baato laakiin muhiimaduna waxaa waaye inaan barno qaabka table loo geliyo okay qoraal noocan ah oo table eh qaabkee qoraal caadi u bedeli kartaa waa dooranaysaa markaad doorato kadib waxaa ku dhufanaysaa design then waxaad tegaysa meesha ay qoran tahay convert to range qoraalka marka intaanan u bedelin table magaciisa range waaye range la isku dhaha markuu table yahana qoraal caadi u bedelin range markaas aad leedahay convert to range leedahay kadib yes adeegsa sidaa ujeedo aad qoraal caadi ay isku bedel okay marka table ka dhigaysid waa dooranaysaa kadib insert table dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa control T markaad dhahdo okay leedahay then waa ka table ay isku bedelaya marka sidaas ayaa qoraal table loogu bedelaa okay design-ka asal arkayna marka table-ku wuxuu leeyahay design kala duwan ayuu leeyahay design-ada kala duwan ayaad siin kartaa soo jeedid qaybtaas ayuu isku bedelaa markiiba design-ada noocaas loo bedelaa marka okay table design waa aragnay sidoo kale table design-ku wuxuu leeyahay table design option soo jeedid meeshan table style option ayuu leeyahay style option-ka hidden row oo horeeyo hidden row waa qaybta name iyo type ay qoran tahay haddii tigta aan qaado waxaa dhici doona inuu meesha ka baxo soo jeedid waan ku soo dari kartaa okay first column waa column-ka ugu horeeyo hore oo soo baranay wixii column wax la dhaho iyo wixii row la dhaho column quantity ana la dhahaa column row-nu ku jiifo way row ayaa la dhahaa okay first column marka uu leeyahay column ugu horeeyo way talaha hadda column ugu horeeyo haddii tig aan saaro then you see color madow ayuu qaadanaya column ugu horeeyo okay total row qaybta hoose ayuu kusoo dari doonaa total row sidaa ujeedo qaybta hoose wuxuu kusoo daray totalka tiradan dhan ayuu kusoo daray oo 940 ay noqotay daartana qaadina you just click asiina ka qaadaysa bis padded row dhaxda waaye padded wuxuu kuseeyaa row markaas qaybta dhaxda kuseeyaa first column ugu horeeyo waan sheegnay last column ugu dambeeyo and then padded column nida saas sameynaa marka waxa waaye waa table style option ahaan waaye haddaad u isticmaalaysaa haddaad waa iska dhaafi kartaa okay table-ku waxaa ku samayn kartaa resize oo inaad yareyso ayaad samayn kartaa tusaalahaan markaad doorato like now qaybtan dambe markaad qabato kor oo qaadi kartaa fiiraad sameynaa table-ka inta bas ku ekaaday oo qaybtan dambe table ku jiro haddii marka sii soo rarto inaad soo celisidna you just waa qabanaysaa kadib waa soo jeedaysaa marka qaabkaas resize u samayn kartaa marka waa yareyn kartaa waana weyneyn kartaa table-ku waxyaalaha uu leeyahay waxaa ka mid ah remove duplicate wax la dhaho wixii soo laabta haddii aad rabto inaad saartid waa dooranaysaa kadib design qurxinaysaa kadib waxaa leedahay remove duplicate hadda kulligii uu ku dooray saa ujeedo name iyo type hadda qaybahan oo kale qaybaa soo laabatay saa ujeedid waxyaalahan way soo laabtay saa aragtid nambarada qaar soo laabtay then wuxuu samayn doonaa hadda tusaalahan aan selector dhahaya aan select all kadib type 2 camal dooranaa type 2 markaan dhaho wax kasta oo markaas soo laabtay oo la xiriiro table dhan ayuu soo doonaa okay ayaa leeyahay then wuu remove garay saa ujeedid wixii soo laabtay dhan qaabkaas ayuu remove garay marka haddii table-kaada waxyaalo soo laabtay oo arrin ay jiraan qaabkaas oo bixinaysaa oo remove duplicate ayaa la dhahaa hadda saan rajeynaya table-ka wax badan ka fahantay haddana wax cusub aan usoo bir wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh